بسم الله وعليه هاي قفكو هدوها قف مر صلاة كتا مرتو كذا مرنا كتا مرنا ضعفة يعني لكن هذا بد كاني كتو بد كاني سيدابو كوقلين كرا أيقون لأوجين صلاة ضعفة تردود. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد قفك صلاة مركي والتوبات كان له توبة ضعف ويديستو دي صلاة تردود عن لجرانين إن شاء الله تعالى توبة صادقة هدو لي مادو تاسا كان فعيس إن شاء الله تعالى هذه دي توبة دي سلقة ولا أقبلي وايو وآخر الله وقف صدنا هذا آخر إلهي سؤال حالهم بوالكين لو عفين لو قبصده لكن هذا قدر قوانو عنده كره أما أنت حق ضيع أما الصلاة والبصلاة هالراعية ما شرته تاتو ولا إن يكفر أنت هيبان رجينيا علماء كلا كول يجينيا هذا يكون دريان. سؤال الله واضح حليه يا شيخ وحان قوا عذرك اللو يقان صنبوركا صلاتنا آد بيد بتاع قارهان صلاة الصبح هدي أن قبل يستقبل كورن شيخ وجزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. روحه هدو بيها استعمال كودا كل باتونيو dhibaataduna ay tahay mashaqo ama dhibaato aan caadi ahayn oon muctaad ahayn ruqsu u haystaa inuu gabagabaysto biyahana iska daayo laakiin waa inay tahay mashaqada iyo dhibku waa inuu dhib adag yahay xogaa samboor yar oo ku hayo oo dhowr goor unaad hindhisaysa hadduu yahay dhib weyn ma ah weysayso dhowr goorna iska hindhis mushkilo male haddiise laakiin cudur weyn uu kugu noqonayo oo markaasi ay ka dhalanayso inuu dhibaato weyn kuu geysto markaasi ruqsaad u haysataa inaad gabagabaysato ood biyaha iska dayso wabilaahi towfiiq. جزاك الله خيرا شيخ محمد عبد الأمل إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك كوغو درو. سؤال شكرا وحوليه الشيخ وحان مسؤول كاهي دكان ننكي لهانا ومقن يهي وحاجر مرمر لعقا يرير او يقوب بحاسيدة قدد يوحي لمدكا لعقتها ايضا وحلال ما يتهي. الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكن وحكيه هي مسؤول دكان سدوليه هي نبا وديبتي وأمانه وقضاء لعجير يربان استعماله بويري أنت يتهم مشيجين قدو إيو حيالها لمده أنا استعماله ما يبنى أنت هاي جوابته وحويه هدي الله قو أقلان ونكا أنا قو أقلان إن القدد كلب حكرته أما وين حقوق الدرين مشارنا أدمشي كقاضته heshiiskana aanay ku jirin inaad isaga qadada iyo aad ku leedahay cuntada wixii mushaharkaaga kaliya un baad meesha ku leedahay wax kalena amaanada lagu dhiibtay kama qaadan karto ama ha noqoto cuntadaada ama ha noqoto waxyaalo kale oo tasarufaada oo aad ka qaadatay maxaa yeelay amaana lagu dhiibtay weeye addi al-amaanata ila man i'tamanak wallahu a'lam. جزاك الله خيرا. gabadhan waxay leedahay sheekh waxaan mas'uul ka ahay caruur agoona meel ayaa raashin laga siiyaa raashinka isaga ah marti ayaa noo timaada martidii aniga waxaanu ka cunno xalaal miyaa. الحمد لله الشيخ قرن هو هالمامان مالين ساكو سواشا يويديه marka de su'aasha saaka ka jawaabay sheekh qorana soo kuma filla dadkan uma maqlayn haddaba waxay maraysaa arrintu su'aalihii wadaadada hore loo weydiiyey ha ku soo celiyaan laakiin waan isaga celin insha allahu tacaala. dadku hadday duyuuf iyo marti xaqa yihiin
qofka dayfka ah cidda uu soo martiya nusuusta shariicadu xaq bay siisay. cidda la martinayo ee xaqa lagu yeelanayana xaqa diyaafada oo qadarka waajibka ahi intaan garanaya nusuustu ma kala qaadin inuu ilmo yar yahay iyo inuu weyn yahay, inuu agoon yahay iyo inuu aabbale yahay. arrintaa waxaa dheer marka la eega macnaha xadiidkii nabigeena sala allahu calayh waalihi wasalam uu ku yidhi ninkii anta wamaaluka liabiik, adiga xoolahaagaba aabbahaabaa idin leh. haddii la yidhi aabbahaaba adiga xoolahaagaba idin leh oo mas'aladu xoolihiisoo ku tasarufay ama uu isticmaalay asalka xadiidku uu ku yimid, aabbihiiyo hooyaduna haddaanay hooyadu wax dheerayn ay xaq siman yihiin, qiyaaska xadiidkaana uu keenayo in waalidka wixii u baahda xoolahaaga ka isticmaali karo oo ku tasarufi karo. labada asal haddii la eego wixii aan ka badbadis aan ahayn ama wax dhib muuqdo oo weyn soo gaarsiinaya ilmaha xoolaha leh aan ahayn, waalidku hooyadaihi ilaa xad wixii macruufihii way ku tasarufi kartaa xoolaha ilmaheeda agoonba ha ahaadaan. martidu haddii soo martidana cidda ay martiday xaq bay ku leedahay wujuubu diyaafa ah. xuquuqda maaliga ahna waa laga bixiyaa amwaasha agoontu ay leeyihiin. labadaa haddii la isku daray martida soo martiday waa laga martigelin karaa, laakiin waa in aanay badanoo dee meeshii meel martidu isu soo sheegto oo la yidhahdaa halkaasaa dabkeedu mar walba shidan yahay oo ilmihii tacaddi iyo waxyaalla ku noqonaysa, waa inaynay noqon. martida waxaa la siinayaana wax ka badbadisa oo xaq iyo baahidii ay lahaayeen ka badan inaanay noqonin oo tacaddi noqon kara weeye. wallahu aclam. jasaaka allahu khayran. wuxuu leeyahay saa'ilkanu haweenka sheekh shaqo ma loo diri karaa ganacsi suuqa ah inay joogto suuqa ayuu leeyahay, yacni shaqada suuqa haweenka ma loo diri karaa? bismi illahi raxmaan raxiim. hal arrin horta waxaan kaga noqonayaa arrintii gabagabaysiga jawaabteedii. waxaan raba inaan kaga noqdo sandaarsiga ma waajiba mise waa sunno ayay culimmadu ku kala aragti duwan yihiin. waxay qabaan in badan oo ka mida sandaarsigu waajibba ma aha. sidaas daraaddeed maadaama ay tahay sandaarsigu masalo wujuubkeeda iyo sunnanimadeeda laysku khilaafsan yahay, isagii hadduu tacaduro oo suuroobi waayo sandaarsigii, waysada inteedii kale xubnaha intoodii kale ha laga weyse qaato. haddii sankii aad biyihii gelin kari weydo oy kuu suroobi weydo, beddelkii waysada dhan inta laga tago oo qodob ikhtilaafi a looga tago loo aadi lahaa beddel oo gebagabaysi ah, waa in sandaarsiga laga tago xubnaha intooda kalena laga weyse qaato. haddii wejigoo kale ay ahaan lahayd waa farad aan khilaaf ku jirin, gacanta dhaqitaankeeda hadday ahaan lahayd waa farad aan khilaaf ku jirin, way noqon lahayd. laakiin hadday sandaarsi tahay intaad ka tagto xubnaha intoo kale ka weyse qaado. qodobka halkaasaan kaga noqon lahaa. qodobka sheekh maxamuud uu ka jawaabayna wax yar baan ku dari lahaa. waxaan ku dari lahaa martigeliyada uu sheekhu sheegay wujuubkeedu waa maalin iyo habeen. habeen iyo maalin wixii ka badan martigeliyadu waajib maaha. waa qodob labaade, martida waxaa la yidhahdaa dad kor ka yimid oo socoto ah oo ku soo martiyey.
laakiin dad magaalada kula degan oo ka soo wareegay magaalada oo xaafadda yimid oo shaah soo doontay marti ma aha Soomaalidu laakiin marti bay u taqaanaa xaafado kale ka yimaadeen maanta magaalada waxay joogaan xaafaday joogaan inay ka qadeeyaan bay ku tala galeen waxa laga yaabaa Soomaalidu mafhuumkeeda inay marti u haysato taana martida ma aha martida laga wado waa dad socota oo magaalada qariib ku ah oo reerka u yimid oo meel kale aan haysanin kuwaas marti la dhahaa martida sheekhu ka hadlayo ee xaq lana taayada way mafhuumkaasna laga yaabo dadka qaabkood inay qaataan oo saxiilaha mas'aladan ugu dambaysa oo ah haweenka suuqa ma loo diri karaa asalku waxa weeye inay dumarku guryaha joogaan waqarna fi buyutikunna sada asala laakiin haddana sida xadiidka saxiixa ku yaala nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam alla wuxuu idin idmay inaad xaajadiina soo gudataan oo banaanka markay xaajo uga baahdaan way soo gudan karaan haweentuna way ganacsan kartaa dukaanna way furan kartaa laakiin waa inay dawaabidii iyo shuruucdii shariicada dumarka ay ugu tala gashay in la ilaaliyo waa inay asturan tahay waa inaan dhib soo gaadhaynin waa inaan akhlaaqdeedii iyo xishmadeedii iyo xijaabkeedii iyo dhibaato soo gaadhaynin shuruud muayyan ah waa inaan fitna looga baqaynin shuruud muayyan hadii la helo la baas haweenka inay dukaan furato inay ganacsato laakiin mar walba waxa ka fiican haweenku inay gurigooda u bataan marka taasaasan kaga jawaabi lahaa masaladu asalahan waa iska mubaax laakiin waxay ku xidhan tahay maxaa ka dhalanaya sababay shariicada u waafaqaysaa ayaa ka dhalanaysaa su'aal buu sheekhu ii soo qoray laakiin isagaan u daynayaa wixii idaafa insha Allah ta'ala jazakumullahu khairan ninkan wuxuu leeyahay sheekh waxaan ahay nin darawal ah baawur baan waday haywayga anoo maraya wiil yar oo qaan gaarin baa igu soo booday waan jeeday wiilkiina wuu dhintay dadkii oo dhan baa igu soo xoomay haddaan sii joogo maadaama dadka wuxuu yiri meesha deganaa dad khawsa ay ahaayeen oo wada hubaysan waxaan ka cabsaday aniga iyo naftaydaba in la dilo yaani naftayda in la dilaan ka cabsaday wiil marka waan cararay maxaan ku idhaahdaa wax diya amiyaa laygu leeyahay sheekh maxamed shibri jazakallahu khayr بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ما بعد masaladani dhowr arrimood baan ka dhihi lahaa marka koobaad qofku haddii uu ka mawdilay in lafihiisii la dilana uu ka baqayo dee meesha inuu ka carara way u bannaan tahay laakiin inuu dhunto ma bannaana meesha lagu dilay haddii uu ka cararo waa inuu xarunta booliska tagaa oo arrintii uu sheegaa saasaan ka soo cararoon ka baqay qofkaan aniga gacantayda uu ku dhintay waa inuu yidhaahdaa waayo qofaad qalad u dishay dee magtiisii waa lagugu leeyahay saa darteed qofkan magtiisii si loo xaqiijiya qaabka aad ku dishay in waxa lagugu leeyahay iyo dadkii dhiiggan iska lahaa iyo xuquuqday kugu leeyihiin haddii goobtii rukhsad la helo lafahaagii in lagu dila aad ka baqday ka soo cararto waa inaad isgeysaay oo issheegtaa kadibna wixii xuquuqee lagugu yeesha aad bixisaa ninkan khawsi iyo gaal buu ahaya wax la mid ahna kaa caafin maayaan oo kaa saamixi maayaan haddaad qofka adugu qalad u dishay ama gacantaada qof qalad ugu dhinto inay xaqiisii iyo dhiiggiisii uu hadur yahay ma aha qofka haddaad dishaan oo xataa aanu muslim ahayn gaalaad isdagaalayseen oo xarbi aanu ahayn qofku soo weeraray oo dafcu saa'ilna aanay ahayn binasi lqur'aani diye iyo xuquuq buu leeyahay saas darteed haddaad goobta ka cararto arrintaa darteed dee inaad sheegtood geyso weeye wax kaloo xaqiisa kaa caafinaya garan maayo culimmadaanu deen waxay ku darayaan nacam جزاك الله خيرا شيخ وحير وبس سؤاشا وحوليه شيخ محمد أنا شيخ وحان خطبة سيرات صدي يعني وحان خطبة سيرات كجور صدي قبل مدة هالسنة كهرة وأنا إسقبنا إلا هذا قبل أنا إسكمل ما تشوفنا لكن سيدا مقطع وطاقة وحول قبل أنا وانشعل هاي بيلا مسيو محا يقول
maxaa ii gudboon oo aan sameeyaa sheekh alxamdu lilah horta aniga waxaan la yaabanahay markii guur la soo qaado maxay raggan u qoslaan baalka waa la jecel yahay miya bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wuxuu leeyahay gabar baan khudbad siraystay sanad ka hor weli waan wada joognaa mana biilo waana jeclahay markuu intaa soo sameeyey hadduu wirsanayaa maaha awal waxba ma weydiinayn markii hore nikaaxaasu sax ma yahay mase ma aha isma weydiin hawshiisii buu qunsaday dantiisii buu dhammaystay biil lagama rabo yaa gabar islaameed buu haystaa hadda wuxuu leeyahay maxaa sharcigu ka qabaa jawaabtu waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan axaadiis sheegaysa gabadha inaan la nikaaxin karin weligeeda la-aantiis sida arrinkan hadda khudbasireedka dadkan ay u yaqaaniinna waxa weeye saan filayo in ay isla dhuuntaan oo isqarsadaan weligii ama dadkii ehelka gabadha u ahaana laga yaabay xataa inay beledka joogaan ama waddanka joogaan ama magaalooyinkaas meel ka mida joogaan oo aan war laga hayn waxna lana wargelinayn oo ninkan uu la dhuumanayo qarsanayo siriyada saasaa sirta loola jeedaa sidaan filayo nikaaxa sidaasoo kalena sida saxiixa waa nikaaxan waxba ka jira naska xadiiska nebiga calayh isalaatu wasalaam sidaasuu leeyahay ayuma imra'atin nakaxat aw nukixat bigayri idni waliyiha fanikaaxuhaa baatil nikaaxuhaa baatil xadiiskan waxaa laa nikaaxa ilaa biwaliyin marka aayaadka qur'aankan ah marka aanu u wada fiirsanayno intooda badan waxay u tiirinayaan nikaaxa qoyska iyo awliyada gabadha saas darteed waxa weeye nikaaxa saas oo sirta weligu aanu waxba ka ogeyn idinna laga qaadan nikaaxa waxba kama jiraan nikaax baatila weeye wixii idin dhex marayna allah idinka cafiyo intaasna inaad ku kala joogtaan wey haddii meeshaa wax ka dhasheen ama ilmo ka dhasheen ama wax ka dhasheen waxa weeye ilmahaasu way ku raacayaan laakiin waa in nikaaxa la saxaa nikaaxa waa in la saxaa haddii ilmo ka dhasheenna ilmahaas culimmada qaarkood waxay kutumaa nikaaxu shubha inuu ku yimi oo uu maaragtay markaa ilmuhu ku raacayo haddii aan waxba ilmo iyo wax raadoo ka dhashay iyan jirinna waa inaad ilaahay ka baqdaan oo sidaa ku kala joogtaan ilaa aad nikaaxa ka saxaysaan oo ehelkeedii aad weydiisanayso adiguba gabadhaada oo lagaala tago oo aan waddadeedii loo soo marin oo la yska xalaalaysto waxaan filayaa inaadan raalli ka noqoteen indhaha gooshana sidii la doono laga yeelo wallahu tacaala aclam jasaaka allahu khayran wbaaraka allah fiika sheekh maxamed idriis sheekh maxamed umal wuxuu leeyahay baaraka allah fiika waxaan waqactu zina ninkan afcarabi buu ku soo qoray waxaan ku dhacay buu leeyahay zina wa ana saa'im anoo sooman fa kayfa aqdi hada soom soonkaas sideen u qalleeyaa wa hal lii min tawba wamaa hiya nasiixatuka canii bismi illahi raxmaan raxiim intaana ka jawaabin wax yar baan sheekh maxamed u idaafayn laha hadalkiisa oo ah sheekhu suu sheegay weeye laakiin hal qodob ku darsada ninkii su-aasha soo qoray haddaad gabadhaa u galmootay meherkeedii way leedahay meherkeedii way leedahay xadiidka sheekhu uu akhriyay aakhirkiisa bay ku sii caddahayoo fa in dakhala biha falaha almaru bima staxalla min farjiha hadduu nikaaxa khaladkaa ugu galmoodo waxay leedahay meherkeedii sababtay ku maysana waa xalaashiga uu xalaashaday farjigeeda marka maadaama aad u galmootay nikaaxu khaladba ha ahaadee meherkii gabadha waad siin
mar labaad haddaad mehersatana meher cusub baad ku mehersan qodobkaas horta bal muxuu ahaayey ku darso ninkii su-aasha soo qoray arrinta kale oo ah ruuxa ramadaan isagoo sooman zinada ku dhacay towbad waad leedahay ruux dembi gala oon towbad lahayn ma jiro inta aan towbaddu xidhmin oo wakhtigay xidhmaysay aan la gaadhin iriddu waa kuu furanta waxaase lagaaga baahan yahay kafaara lagaaga baahan yahay kafaara adag baa lagaaga baahan yahay oo noqonaysa inaad addoon xorayso hadda lama heli karo waxaa xigta hadday suuroobi weydo inaad soonto 2 bilood oo isku xigta oo hal maalina uusan u dhaxayn haddaad kari weydo oo si dhaba aad u kari karaynin waxaad quudinaysaa 60 miskiin baad quudinaysaa miskiin walba hal mar wuxuu ka dhargaadsiinaysaa ama raashiin bisil ha noqdo ama caydhiin ha noqdo intaa waxaa dheer maalinkii aad jabisayna waad soo qallaynaysaa towbaddana waad ku daraysaa intaasaad raacinaysa iyo inaad ka dadaasho hadda kadib insha allahu tacaala arrinta noocaas oo kale ah oo haddaabaad nin aan iscelin ka tahay dee seeraha lama ag wareegaysto haddaad yacni waxba aadan iscelin karin meesha xerada la mamnuucay ka ag fogow haddaadan nin isqaban kara ahayn oo hadda kadib insha allahu tacaala taxadar wabillahi towfiiq jazaaka allahu khayran sheekh maxamed saa'ilkan kale wuxuu leeyahay sheekh maxamed shibli waxaan ku lahaa nin dayn waxaan u jeedaa dayn yaan ku lahaa nin dukaankiisaanan ka shaqaynhayay ninkii oo aanan u sheegin yaan dukaankii ka qaatay dayntaydii shareecada islaamku maxay ka qabtaa بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد qofku hadduu qof xaq yahay xoolihiisuna ay soo maraan wuxuu uga qaadan karaa haddii uu si kale xaqiisii kaga waayo haddaad qofka xaq ku leedahay xoolo kuwiisana gacantaada soo galaan si kalena xaqaagii aad kaga weydo marka koowaad waad qaadan kartaa waxaana lagu taasiiliyaa asal looga dhigaa qisadii hinda binti cutba iyo abu sufyaan markay tidhi abu sufyaan waxay ku lahaayeen xaq biila waxayna tidhi waa yar gacan adag yahay oo wax nagu filan nama siiyo nabigu calayhi salatu salaam wuxuu u fasaxay inay ka qaadato oo xaqay leedahay oo si kale kaga weyday haddii qofku uu ka qaato xaqii uu ku lahaa xoolihii inuu qofkii u sheegaa waajiba si qofkii uu ogaado dimadiisi iyo qoortiisu inay beri noqotay waayo qofkan waxaa dhici kara adoon u sheegin inay geeriya ajal kugu timaado qofkiina uu haysta xaqii weli in lagu leeyahay adigana dhinaca kale xoolaha laguu dhiibay oo xoolo ammaano ah ammaanaduna gacantii qaaday gacanku simitaan bay leedahay asalku qofka xoolihiisa inaad u sheegtay inta aadan qaadan weeye inta aadan xoolaha ka qaadan waa inaad u sheegtood oggolaanshihiisa heshaa haddii aad qaadatay ay kuguba tagtayna qofkii waa inaad wargelisa aad u sheegtaa xoolaha intaa la-eg inay xaggaaga jiraan oo xoolihii si ka mid ay kugu maqan yihiin markaa kadib saad dayntii u kala saxan lahaydeen ama waxaan offsetka la yidhahda isugu samayn lahaydeen aa isla meel dhigtaan laakiin asalku ammaanada laguu dhiibay inaad ninkii lahaa ogeysiiso ood u gudata weeye haddaad xaqaagii si kale kaga weydana waad qaadan kartaa bina'an calaa xadiidka hinda binti cutba iyo abu sufyaan radia allahu canhuma wa ardaahuma wallahu aclam jasaakum allahu khayran su-aasha kale sheekh wuxuu leeyahay xaaskaygii baan waraaq u qoray waan ku furay baan idhi waraaq baanan ku qoray afkana kagama hadlin dalqadaasu ma dhacaysaa sheekh maxamed alxamdu lilah wuxuu leeyahay yani saad maqlayseen
xaaskaygii warqad baan u qoray aan leeyahay waa ku furay dalqad baan kugu furay warqadaasaan ku qoray oon siiyey afkana kama aanan dhihin iyada ma dhacaysaa dalqadaas jawaabtu waxa weeye alxamdu lilah sidaan culimmada ka maqalnay dalqadaas way dhacaysaa sababtoo ah qoraalku haddii afku waaba ka sii adag yahay waa wathiiqo adigu qortay haddii la hubo inaad adigu qortay oo adigu aada saxiixday waxay ka dhigan tahay ama kaba sii adag tahay inaad tiri afka ka tiri oo kale wallahu aclam jasaaka allah khayr waa dhowr su-aalood oo soo noqnoqonhaya isku mid baan ka soo qaadan doonaa wuxuu leeyahay sheekh xawaalad baan lacag dhigtay xawaaladda waxaan u dhiibay ninkii fadhiyey xawaaladda xafiiska laakiin wuxuu ahaa shaqaale xawaaladdana waxaan u dhiganhay lacagta ammaano inay i hayso maadaama bangiyada iyo aanaan aada u lahayn muddo kadib yaa waxaa laygu yidhi waxba laguma hayo ninkii aad u dhiibatayna shaqaalu ahaa isaga un baana gooni u isticmaalay ninkii xawaaladda lahaa saasuu igu yidhi lacagta ma waxaan ku leeyahay ninkii shaqaalaha ahaa mise waxaan ku leeyahay meeshaan anigu ammaanada dhigtay oo xawaaladda ah bismi illahi raxmaan raxiim lacagtaas shirkaddaa lagu leeyahay ninkii meeshii fadhiyey ee shirkadda u fadhiyey haddii muxuu ahaayey uu dadka siiyana oo yidhaahda anaa bixinayana bixiba haddii kale dadku xaq waxay u leeyihiin inay shirkadda ka qaataan shirkaddayna toos ugu yeelanayaan masaladaana waxay ku salaysan tahay sharikaduhu markay samaysmaan waxay leeyihiin wax loo yaqaano fiqhiga alshaqsiya alictibaariya shakhsiya alictibaariya waxa weeye shirkaddii rag baa sameeyey oo asaasay waxay noqotay wax jira oo xafiisyo leh oo maamul leh oo dadkii la mucaamaloonaysa oo wax dacwaynaysa oo dayn qaadanaysa oo dayn bixinaysa yacni sidii shakhsi oo kale bay noqonaysaa sidii ruux oo kaley noqonaysa maadaama ay sifo ruux oo kale qaadanayso iyadaa dadku la mucaamaloonayaan ayadana yaa matalaya maamulkaa matalaya dadka ay meesha dhigatay baa matalaya dadka i meesha keentay iyadaa la rabaa inay ka dadaasho ayadaa dadka hor keentay oo meeshan fadhiisiisay oo ku tidhi waa aamin oo dadka u sheegtay dimnan dadka ugu sheegtay ruuxaasi waana matalaa maadaama dadkii ay shirkadda la mucaamaloonayaan magac shirkadna ay meesha ku yimaadeen magac shirkadna xoolahooda ay u dhiibteen ruuxanna shirkaddu meesha dhigtay isagoo keligiioo meel fadhiyana dadku ayna waxba u dhiibteen laakiin magaca shirkadda lagu aaminay shakhsiya ictibaariya la yidhaahdaa xoolahaa shirkaddaa lagu leeyahay ee shakhsiga meesha fadhiya laguma laha shirkaddaa la rabaa inay shakhsigii ka raadsato laakiin ruuxa meesha dhigtay isagu shirkaddu ka raadsanaya shirkaddana hadal ma aha warna noqon maayo ninkani meeshuu fadhiyey isagaana isticmaalaya u raadsada hadday masaladu sidaas tahay waa inay shirkaddu ay dhejiso dadkana u iclaamiso si kaafi oo ku filanna ummadda u ogeysiiso xafiiskanagaasi ammaanaad ma qabto hadday sidaa iclaamiso oy xafiiska ku dhejiso oy meel walba ka sheegto oo ruuxii uu isagu markaa khaldamo oo ruuxan ammaano u dhiibto waa masale kale laakiin shirkaddu hadday ammaanaad qabato dadkuna ammaanaad keensadaan sidaana uu xafiiska u keensaday ruuxii uu u dhiibtay baa isticmaalay shirkaddu ruuxaasay ku leedahay ruuxuna xoolihiisii meesha u dhiga shirkaddu ku leeyahay wallahu aclam jasaakum allahu khayran ilaahay miisaanka xasanaadka ha idinku daro saa'ilkan sheekh wuxuu leeyahay hooyaday ayaa dhimatay waxayna ka dardaarateen dayn cadadkii iyo tiradii lagu lahaana way sheegtay qoladii markaan lacagtii u geeyay waxay dhaheen lacagtan way ka badnayd intaan hooyadaa ku lahayn lacagtii oo dhan baan siiyey markaan u geeyay haddana mar kale waxay yidhaahdeen waxbaa dhiman
maxaan ka yeelaa waxa saas oo kale ah sheekh maxamed idriis alxamdu lilah deynta hooyada lagu lahaa ama ayeeyada oo ay sheegtay caddadeedii way kuu sheegtay sida aad tidhi dadkiina waxay ku sheegteen wax intaa ka siyaadsan masalada marka u horraysa waxa weeye wixii bayino ah oo meesha yaal ayaad eegaysa ama la eegayaa hadday jiray waxay kala qorteen oo caddaynaya in intaasoo deyna lagu leeyahay intii ay kuu sheegtayna ay tahay intiina aad bixisay waa inta lagu leeyahay haddaan wax ka siyaadsan oo bayino ah oo cad ama markhaatiya la keenin laakiin hadda sida su-aasha saa'ilku uu ku yidhi ama qofkayna weydiiyey intii ay sheegtay ayeeyadiis waxay ku sheegteen ka badan intiina wuu siiyey khayr allah siiyo wuu ku tabarucay lacalla inaan wax la kala qoran ama ay iyadu hilmaantay ama ay si kale wax u dhaceen intii ay sheegteen ayaad bixisay haddii aan wax kale soo bixin oo caddaynaya in deyntu intaa ka badnayd wax kaloo lagu leeyahay sida meesha ka muuqata ma jirto oo mar kale ay haddana ku soo noqdaan oo yidhaahdaan inta way ka badanta waxay u baahan tahay markaa in la soo caddeeyo yacni markaa sida muuqata wax kale laguma laha haddaadan adigu ku tatawuc ahayn oo uga biqi ahayn lacalla amay ku dhacday wax kale haddii bayina aanay jirinna dhaar baa bannaan wallahu tacaala jasaaka allahu khayran saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh waxaan qabaa cudurka sonkorta sanadkii hore la soo dhaafay waxbaa iga tegey kii ka sii horreeyeyna 8 maalmood baa iga tagtay haddii aan soomana tabcaan baan noqoni maxaa iga khayr badan oo aan sameeyaa jasaakum allahu khayran bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu ala sala ama bacd intaanan su-aasha ka jawaabin su-aashii u dambeysay sheekha waxoogayn caddayn dheeraadaan ku dari lahaa wixii dheeraadee dad ku soo sheegta hooyada ama dadkii ama dad kale haddii adigu naftaada intay ku tiib noqoto aadan iska bixin iyagaa bayiniya markhaati laga rabaa iyagu markhaatiga hadday waayaan idinkaa dhaarta iska leh laakiin dhaartiinnu waxay noqonaysaa inaad ku dhaarata waxaa la yidhahdaa nafyulcilmi inaadan ogeyn wax deynoo saasa in lagu leeyahay inaan lagu lahayn kuma dhaaran kartid oo inan qaadan weligeed waayo qofkii ficilka sameeyey adiga ma tihid marka nafyulcilmi baad ku dhaaranaysaan haddii kaleod dhaarta ka cabsataanna iyagaad ku celin iyagoo hadday dhaartaanna xaqoodii wayeelana way mudan sidii dacaawada caadiga ahayd ee dacwa iyo bayinaadka loo kala xukumi jiray masalada qofka sokorta qabee soonku dhibayo haddii soonka markii uu soomo uu dhibaya dhib uunan xamili karin oo mashaqada iyo culayska ka soo gaarayay ama aanu adkaysanba karin ama cudurka iyo xanuunku ku sii weynaanayo uu ka baqayo dhibkaa laba mid buu noqdaa in soonka dhanba dhibayo iyo inuu xiriiriyo cadad go-an inuu dhibayo haddii qaybqaybinta iyo yaryarayntu aanay dhibaynin wuxuu soomi karana wuu soomi wixii kalena sanadkuu qadaha u qaybin oo yaryaraynaya waayo qaduhu tataabuciyina israacisa ay waajib ma aha haddii laakiin soonku sidiisaba dhib uusan xamili karin ama cudur ku badanaya ama aanu kuwa sabri karin uu gaarsiinayo fidyuu bixinayaa maanta iyo berri baad roonaanaysaa iyo waxoogay yar sugna aan lalahayn fidyuu bixinayaa maalin kastaba miskiin buu quudinayaa sidii dadka waayeelka ahaa ee duqoobay ama maradka iyo xanuunka daa'imkaa leh wallahu aclam jasaaka allahu khayran ninkan wuxuu leeyahay sheekh haddaan xaaskayga ku idhaahdo waxaa ha samaynin dii kale waan ku furahayaa ama waad furan tahay oo ay wixii samayso dalqad maxaa dhacahaya siday culimmadu u badan yihiin jamaahiirtoodu ay qabaani waxaa la yidhahdaa altalaaqu almucallaq baa la yidhaahdaa jumhuurtoodu waxay qabaan shaygii aad dalqadda ku xidhay haddii ay samayso inay furmayso oo dalqadi dhacayso saasay u badan yihin
riwaaya can imaam axmed baa jirta oo uu leeyahay ma ahee waa bimathaabati alyamiin waa dhaar oo kale oo lafdigu lafdul dalaaq haba noqdo mucallaqa laakiin macnuhu waa macno dhaareed oo ama shay baad ka reebaysaa ama shay baad amraysaa macnihii dhaar ahaan buu qabaa buu leeyahay marka lafdiga ma ictibaarinaya macnuhu ictibaarinaya riwaayadaas ayaa waxaa rajaxaya bacdu almuxaqiqiin ibnu taymiya iyo ibnuulqayim iyo rag dan baa rajaxaya oo muxuu ahaayey inaysan dalqadiba dhacaynin laakiin ay dhaar noqonayso kafaaradii dhaartana ay ku laasimayso yacni kafaaradii dhaarta oo ah muxuu ahaayey inuu ruuxu qoor xoreeyo ma jirto hadda uu 10 miskiin quudiyo hadduusan kari karina inuu 3 beri soomo taas ayay rajaxaan culimmadaasina macnaha marka la fiiriyana taasaa aniga ila xoog badan wallahu aclam waase masale khilaafiya oo aragtida culimmadu ku kala gedisnaan karto wabillahi towfiiq leeyahay sheekh ruuxaan af carabiga aqoonin soomaaliga salaada dhexdeeda ma ku ducaysan karaa bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasuulillah amaa bacd horta dadka muslimiinta asalku salaada de waa inay adkaarteeda faatixada say u barteen carabi weeye atixiyaadkii waad barateen oo carabi weeye adkaartii rukuucdii iyo sujuuddii iyo samica allahu waad barateen oo carabi weeye horta in lagu ducaysta haddii aada loo danaynayo lama baran waayin carabi lagu ducaysto de haddii aada loo danaynayo lama baran waayin dadkuna cajabinimadii iyo xataa cimriga iyo da-du waxaan soo aragnay waxbarashada maba celisaba kuwii galbeedka yurubta galay ee 70 iyo 60 jirada ahaa markii waxoogay biilkii caydha ay kaga xirnaatay luqadihii waddanka iyagoo jarmal iyo faransiis iyo ingiriis ku adeeganayaan aragnay marka carabiga marka la yimaadana carabka ay adkaadayoo waxoogay waan yar waa yeelayoo waxoogay tanay noqotayoo inuu yidhaahdo markay luqadaha kale iyo waxoogay risiq iyo nolosha iyo suuqa gashana dee halkan waxaa laga yaabaa inaad ku aragtaan dad luqado badan inta baahida kaga hadlaya horta marka koobaadii luqada carabiga barta soomaaliya haddaad ku ducaysata xataa kolaba luqada carabigu dhadhanka yeelanayso iyo xikmadaha macaanida ay xambaarayso ma xambaari karto intaa marka laga soo gudbo haddii ay qofkii carabigii uu baranba waayo ducadii salaadana uu u baahan yahay fuqahada xanafiyada u banneeyey inuu af soomaali ama afkii kale qadarka daruurada ah ku ducaysto anigu de wax cadoo xaaraantinimeynaya oo salaada way jebinaysa aanu idhaahda garan maayo oo ama daliil ama xujo cadoon idhaahdo sidaa darteed laguma ducaysan karo ama waa xaaraan ama salaaddii af soomaaliya ilaahu khayri si way ku jabi garan maayo wax nusuusoo gaara ku soo aragtay culimmadaa sheegi doonta hadday jirto laakiin kollaba waa laga fiican yahay daruuraadkuna axkaamteedaasay leedahay wallahu aclam su-aasha uu sheekhu hayo gabadh baa soo qortay waxay leedahay sheekh gabadh ama ruux baa igu been abuurtay inaan gogol dhaafka aqaano ninkaygiina wuu u sheegay ninkaygiina wuu rumaystay waxaad mooddaa marka inay ku kala tageen ruuxii sidaa iga faafiyey maxay diintu ka qabtaa maxaanse ku samayn karaa alxamdu lilah ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aan kariimka ah wuxuu ku leeyahay والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم معنونا وحوي ضدك كتب ميسته ضدك دورصون زينو ويراوي زينيستين oo aan keenin 4 markhaati in iyaga korkooda jeedal uu noqonayo qadiyadaasuna waa qadfu lmuxsanaat waa culimmadu ay yaqaaneen marka gabadhan sida iyadu noo sheegayso waxa weeye dad baa ku yidhi ninkeeda waa ku tiri kuteen hadallo wey guryaha lagu duminayo
ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa igu ogyahay bay tiri inay arrintaa been tahay marka dadka saa yidhi oo dhan waxaa ka laasimaya xad la yidhaahdo qadf haddii meesha sharci ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yahay waxaa ama la ysku xukumayo qofka ninka arrinka ay ku dhacday oo ninkeeda ah oo kaleetana haddaanay jirin wax cad oo markhaatiyo ah ama wax isaga ninka marka ay tahay xaaskiisa uu ku tuhmaysanayo qadiyo kale wey oo isaga laftigiisa qadiyo licaan la yidhaahdo dhex marta ninka iyo xaaskiisa hadduu isagu ku tuhmo zino marka taasuna waa mas'alo kale laakiin dad kale waxay u soo sheegeen haddaan markhaati iyo caddayn la keenin ma ahayn guryuhu u dumaan waana waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka nahiyey mujtamaca muslimka in dadka abriyada ah lagu tuhmaysto ama mu'aamaro loo sameeyo ama si been ah loogu been abuurto xadka adag buuna alla subxaanahu wa tacaala uu ka dejiyey waxaana yacni kula talin lahaa in yacni loo caddaeyo ninkeedana tuhmadana laga saaro baraa'adaasna ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii xaqiiqaha wuu ka soo saaraya laakiin maxaan ka sameeyaa dadkaas inaad ku sabirto oo wixii aad ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu sabirto haddii ay jirto cid looga ashtakoon karo muslimiin ah ama wax ka xukmin kara ama xukun ka geli kara ama celin karana way bannaan tahay in dadkaasoo kale laga ashtakoodo wallahu tacaala aclam sheekh maxamed cabdi umal wuxuu leeyahay sheekh ma gadi karaa daawada timaha jilcisa iyo tan madoobaysa labadaba bismi illahi raxmaan raxiim masaladii horta ku saabsanayd salaada soomaali ma lagu ducaysan kara waxaan dhihi lahaa sheekhu khilaafkuu sheegay baa jira laakiin salaada ka daaya luqadaan carabi ahayn luqadaan carabi ahayn salaadda ha gelinina ducada siduu sheekhu idiin sheegay barta laakiin haddii laydin yidhahdo hadda ku ducaysta oo soomaali ku ducaysta berina waxaad soo wadaan adkaarta kalena aan soomaali ku akhrino soo saas ma berina waxaad soo socota markaan rukuucsannahay samica allahu liman xamida inaan idhaahno ilaahu ciddii ku mahadisa maqal ilaahu ciddii ku mahadisa maqal ilaahu ciddii ku mahadisa dhegayso ilaahu aqbal warkaasaad soo wadaan soo ma marka sida naqliga ee salaada lagu soo gaadhay ummaddu u kala dhaxashay waxa weeyaan in la xifdiyo oo lagu xifdiyo luqaddaas carabiga ah marka muxuu ahaay laba kelimaa kugu filan adduunkaaga iyo aakhiradaada laba kelimood qaban karto sida ninkii nebiga sal lla lay wasalam yidhi muxuu ahaayey war salaadda maxaad akhrisaa buu ku yidhi markaasuu wuxuu ku yidhi anigu ma aqaano dandanadaada iyo dandanada mucaad yani dandanadu waa hadal aad maqlayso laakiin aadan fahmaynin yani muumuu iyo wax saasoo kale ah muumuudaada iyo midda mucaad aan fahmaye laakiin ilaahay baan anigu janno weydiistaa buuhi cadaabna waan ka magan galaa allahuma innii as'aluka aljannata waacuudu bika min annaar intaasaan dhahaa buuhi nebigu wuxuu uhi sal lla alay wasalam xawlahaa nudandin aniyo mucaad laftannadu iyadaa umaan ku ag wareegaysanaa buuhi soo ma marka as'aluka aljannata waacuudu bika min annaar iyo xaajadaada markaad u baahan tahay sida sheekhu sheegayba waad baran karnaa wax marka aan khatar u gelina salaadda meesha kuma jiro waxaan dhihi lahaa masaladaa iyada ah ha la adkeeyo qodobka labaad oo ku saabsan su-aashii daawada ma la isticmaali karaa labay kala tahay madoobaysada timaha madoobaysa lagamana ganacsan karo lamana isticmaali karo axaadiista nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh bay ku sugantah ciro laguma bedeli karo timuhu hadday madow yihiin waxba laguma baahna xadiidkii wajannibuuhu sawaad walow lafdadaasi ay leeyihiin idraaj baa ku jira culimmada qaarkood leeyihiin haddana xadiis kalea jirtaoo tilmaamaysa madowga iyo sawaadka in laga dheereedo oo muxuu ahaayey aan timaha lagu bedelin amaa masalada jilcisada timaha jilcinaysa
haddaysan lahayn dhibaatooyin kaleoo jaanibi ah oo caafimaadka jidhka ayna dhib u geysanayn wax mushkilaa ma leh timaha jilcintooda waa la saliidayn jiray waagaaba subag baa la marin jiray timaha markii saliidda la mariya ama subagga la mariyana way jilceen soo saas maaha marka nooc suura bidaa'iya haba ahaato jilcintu marka dhib ma leh allahuma haddaan dad lagu khayaamayn adigoo tima adag aad wax tima jilicsan dadka isaga dhigayso oo markaa ruux ama guur idin dhex maraya ama calaaqa aada ku sirayso meesheeda waay laakiin asal ahaan timaha jilcintoodu wax dhiba meele fil asli wax dhiba male allahuma hadday caafimaadka dhib u geysanayso markaasi waa mamnuuc wixii caafimaadka jidhka timaha dhibaato u geysanaya lama ogola wabillahi tawfiiq جزاكم الله خيرا شيخ محمد شبلي wuxuu yidhi waxaa jira wiil walaalkay oo dukaan ka shaqaynayeen niman baa u dhaartay oo ku yidhi waan ku dilaynaa caawa 3 nin baa sidaa yay ahaayeen ragga u dhaartay wiilkii isla habeenkii baa la dilay waxaana la ii sheegay nin ka mid a inuu meeshii joogay nimankaa isagaa wiilkanaga ma loo diri karaa mase loo qabsan karaa بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد سؤاشا لوثك انت أنا نكادلين حديثك شيخ وإشارة وعد عد إن مدو حرانيا وحديثك سننك يا ابن عباس وحاد من دون آخر الزمان كإن لنا شيخ يبد مودا قوم يخضبون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة كان هذا عرفت هذا حتى أورين مايان urta ama carafta jannadu xataa soo gaari mayso dadka aakhiru zamaanka madaxa madoobayn doona ama timaha madoobayn doona oo ka dhigi doona ka xawaasilil xamaami sida baashan qooleyda qoorteedu u madowdahay timihii caddaaday dadka u madoobaynaya masaladan hadda su-aasha la weydiiyey ninka waa loo hanjabay kadibna waa la dilay iyada daliil kaafiya ma aha laakiin waa damu lawthin waa astaan iyo calaamad aan bayine iyo shahaado buuxda ahayn waa astaan lagu qabsan karoo la tix raaci karo masaladii qasaamada iyo dhaarihii kontonka ahaa dariiqoodayna mari hadduu isagu 50 dhaarood ku lamaaneeyey inuu qof ka mida ama saddexdoodu wada dileen markaa maqbuul waa qisadii khaybar baa asal waa baabulqasaama oo qof kastoo ama colaad ka dhaxaysoo laga helay ama hanjabaadan iyo handadaadani ay horraysay waayo qadaran waa dhici kartaa in cid kale ay dishay ama sabab kale loo dilay ama dadkii aanay uba dhannayn gaayatu maa fi lamri waxa ugu badanee yaallaaye waa astaan muujinaysa inay aada u dhici karta dadkaasi inay dileen marka masaladu masalatu dami lawthin iyo abwaabulqasaamay geli iyo dhaarihii kontonka ahaa wallahu aclam gabadh baa soo qortay waraaq waxay leedahay sheekh ninkaygu wuxuu cabbaa khamrada carruur waaweynna wuu leeyahay markaan idhaahdo khamrada iska daana wuxuu dhihi dhiiggaygaa ku shaqeeyo iskama dayn karo muxuu xukunkiisu yahay alxamdu lilah waxay la tahay gabadha de waa naseexo wixii aan u jeedin karnaa imtixaanka ama ibtilada ninkeeda haysta oo ah khamriga inuu cabbo carruur waaweyn ay leeyihiin oo uga baqayso asal ahaan waxa weeye inay isku daydo inay ka waaniso ama dad kaloo ka waaniya ay la kaalmaysato loo naseexeeyo arrinkan kabiira min alkabaa'ir inay tahay dembi weyn mulkhayf la isku dayo ninkan in naga reebo tafaasiil kale gabadhu kama bixin cibaadadiisa ama salaadiisa inuu salaaddii tukado inaanu tukan ama jaraa'im kale inuu la yimaado iyo dembiye kale xaaladihiisa kaleeto wax kama tilmaamin saas darteed ma dhihi karno hadda yacni toos guriga ha u kala tago
oo ninkii ama ha cayriso ama ha ka tagto waayo waxaa dhici kartaa wax kaloo naga qarsoon ama waxyaalo kale inay ka dhalan karaan ama dhib kaloo ka weyn inuu ka dhalan karo laakiin in lagu sabro haddii aanay jirin wax cad oo masalan carruurtii markaa looga baqayo inuu dhib ku gaarsiiyo ama iyagii khamradii xataa ay ku bartaan oo ku dhibaatoobaan iyo fasaad kaleeto oo ka daran haddaanay jirin waxaan dhihi lahayn sabir lana kaalmayso dadka intaa ka dheerna waxay u baahan tahay masaladu hadday noqoto in lagu kala tegayo culimmada markaa dee idinla joogta iyo dadka arrinka geli kara oo tafaasiishiisa iyo xaaladihiisa ogaan kara inaad la kaalmaysataan wallahu aclam sheekh wuxuu leeyahay su-aashan sheekh maxamed waxaan deganahay guri ninkii lahaa wuxuu igu shardiyey 4 ruux ka badan inaanan gurigaa dejinin aniguna kiradu way igu adag tahay haddaan dad kale soo dejiyana haddee sida muuqata waxaa ka bixi shuruudii maxay shareecada islaamka ay ka qabtaa ama ma ogoshahay shareecadu inaan dad badan soo dejisto bismi llahi raxmaan raxiim haddii lagaa ijaaro ama guri ama meel lagaa ijaaro shardina aan lagugu xidhin ma ijaari kartid shardi a laguguma xidhina waa uun lagaa ijaaray markaasi inaad sii ijaari karto ood intifaacsan karto oo dad kale gelin karto waa masale khilaafiya laakiin cala araajix dhib ma leh haddiise ruuxii maaliga ahaa ama wakiilka ka ahaa ee kaa ijaaray hadduu shardi ah kugu xidho ma ijaari kartid cid kalena ma soo dejin kartid dad intaa ka badanna ma degi karaan shuruudo noocaasa haddaad isku og tihiin maqaaticu alxuquuqi cinda ashuruud waa inaad shuruudda ilaalisa waah wixii aad isku ogeydeen heshiiska ku gasheen guriga uu kugu siiyey intifaaca aad ku qaadatay waa inaad ilaaliso haddaadan ilaalin karayn inuu ku anfacaynin soo celi intaad iska soo celiso mid kale raadso leanna waxa weeye almuslimuuna calaa shuruutihim shuruudaas aad gashay waa inaad ilaaliso haddii aadan ilaalin karaynin waa inaad soo celiso caqdigii aad jebiso kadibna aad aduguna raadsato ruuxiina aad ku soo celiso hantidiisii iyo gurigiisii wabillahi towfiiq jasaaka allahu khayran sheekh maxamuud gabadh baa soo qortay waxay la qabaysto caadada 2 maalmood kadib unbaa haddana dhiig isku arkaa mar walba maxaan sameeyaa ma 2 maalmood baan salaad la'aan iska joogaa mise wax kalaa la samayn karaa بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد gabadhu hadday caadadeedu si rasmi uga dhammaato ama astaantii caadadii iyo dhiiggu inuu go-ay haweenka iyo dumarku badana arki jireen ay aragto ay fuqahadu yaqaanaan alqusa albaydaa haddii ay aragto way ka qabaysan tahaaradii bay la iman cibaadaadkiina iyo salaadihiina way samayn markaa kadib wixii dhiiga yaryar ay isku aragto wixii uu ka gaarana way iska dhaqi salaadihii iyo cibaadaadkeediina way wadi haddii uu rasmi uga go-ay haddiinan astaamihii dhiig inuu go-ay oo rasmi aanay waxaana wax mar walba muddada ay kaa qabaysanaysa maahanee muddada 2 maalmood ee dheeraadka gaara uu yahay waxay tilmaan u noqon kartaa inay 2 maalmoodii ayaamu caadatihaa ka mid tahay ayaamul caadana shardi ma aha mar kastaba dhiiggu inuu qoyanaado bidhaantiisu muuqataay qasab ma aha marar buu kala yar kala guyi karaa marka daba saa darteed ayaamihii caadada ay lahaan jirtay bay ka mid noqon waxaanay haddii uu noqdo wax joogto ah haddiise wax marmar ay aragta marna aanay arkin uu yahay maalmaha dambe waxaa ka yimid waxa ay aragtay unbay iska dhaqi kadibna cibaadaadkeeday tukan intaan garanaya wallahu aclam
jasaaka allah khayr wuxuu leeyahay sheekh saa'ilkan waxaan leeyahay xoolo maal buu ilaahay siiyey laba meelood baanan ku kala shaqeeyaan isku marna xoolahan ima soo gelin marka laba jeer baan sekada kala bixiyaa waxaan doonahayaa inaan hal mar aan bixiyo say suuragol ku tahay isla markaa wuxuu su'aal hoosta ka raaciyey ruuxa musaafirka ah matalan intay safreen oo meel ayay isla maalinkii ku soo laabteen magaaladii salaadiina way soo dibdhigeen marka salaadii ma waxay miyay gaabin karaan iyagoo soo laabtay mise ma gaabin karaan alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah amaa bacd waa laba su-aalood baan u malaynayaa midna waa salaada qofka musaafirka ah midna waa sakada maalka siduu isugu geynayo haddii ay laba waqti oo iskala bixiyey uu lahaa iyadoon aan dib u fiirin inuu laba u kala sameeyo ma sax bay ahayd mise qalad bay ahayd haddana uu doonayo sakadeedii inuu mideeyo ma dhibadna labada xawl midka horeeya xilligiisii marka la gaaro labada saka midka horeeya inta uu xoolaha isku wada daro wixii nisaab ay gaaraan iyo qadarka ay gaaraan ha kaga saka bixiyo tusaale ahaan midna bisha soo socotee janawari bilowgeedaad bixisaa midna bisha shanaad ama lixaad baad bixisaa labada xawl hadba ka soo horeeya xoolihii oo dhan wada xisaabtana isku wada dar markaa isku wada dartana nisbadii boqolkiiba 2.5 ahayd ee ka go-aysay sakada ka wada bixi xawlkooda iyo sanadka wareegooda sakadana sidaa ku mide su-aasha labaad dadka musaafiriinta ah ee safar aaday calaa qowli jamhuurta masaafadii safartana gaaray isla maalintiiba soo noqday siyaabo badan bay u dhici kartaayo dee diyaaradaba lagu safraa hadda 1500 kilomitir saacad iyo bar sii soconaya ama hadday u badato 2 saac sii soconaya lagu safraa qofkaasi salaadihii hadduu soo dibdhigo oo beledkii muqiimka uu ku ahaa uu yimaado oo duhur buu soo dibdhigay ama casar maqrib buu soo dibdhigay wakhtigii salaada kaleu la yimid salaadihii wakhtigaa dambe ha tukado laakiin wuu dhammaystirayaa 4 ragcadood buu tukanayaa munaasabadiga loo gaabinayeyna safar bay ahayd safartiina waa dhammaatay sidaas darteed asalka itmaamka ah axwadka iyo ixtiyaadku ku jiraa inuu salaaddii wada dhammaay marka salaadaha 4 ha tukado oo yaanu gaabinin mar hadduu marka uu gudanaya la imanaya xadnimada ka baxay oo baawul muqiimu galay wallahu aclam jasaaka allah sheekh maxamed sheekh maxamed wuxuu leeyahay ruux baan dayn ka qaatay ruuxiina waan kala tagnay meeluu jirana ma garanhayo xoolaha maxaan ku sameeyaa farqisa ma u dhexeeyaa ruuxa aan daynta ka qaatay inuu muslim yahay iyo inuu gaal yahay bismi illahi raxmaan raxiim haddii aad dayn qaadato ama xaqba lagugu yeesho ama dayn ha ku yimaado ama si kale ha ku yimaado xaqii ciddii kugu lahaydna aad weydo waxaa waajib kugu ah inaad raadiso haddaad isagii weydo inaad ehelkiisi iyo qaraabadiisi iyo dadkii xaqiisi iyo dhaxalkiisa lahaa inaad raadiso haddaad weydo isagiina weydo dadkii xaqiisa lahaana aad weydo kana quusato inaad heli kartana aad ka quusato oy kuu soo baxda inuusan rajo lahayn helitaankiisu xoolaha iyaga ah waad isdhaafinaysaa waad u sadaqaynaysaa masaalixda caamka iyo danaha muslimiintaad ku sadaqayn masaakiintaa la siin waxaa lagu bixinayaa muxuu ahaayey isbitaallada waxbarashada waddooyinka biyaha iyo ceelasha dadka baahan baa la siin masaalixdaasaad ku bixinaysaa oo ruuxii iska lahaabaad u sadaqaynaysaa xoolaha noocaas oo kaleetaa ee maaligii iska lahaa la waayey iyo xoolo badanoo jid xaaraana ku yimaada
asalkoodu masrifkooda sharciga loogu talagalay waa masaalixda caamka ah danaha guud ee muslimiinta lagu bixinaya su'aasha qaybteeda dambe oo ah hadduu gaal yahay iyo hadduu muslim yahay marba hadduu macsuumul maal yahay xoolihiisu mar hadday macsuum ahaayeen oo xoolihiisu ayna ku bannaanaanin ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdee meeshaasaa lagu bixinayaa wax farqiya ma leh gaalka midka xoolihiisu kuu bannaan yahayna waa midka dagaalku nagala dhexeeyo isaga waa baab kale ama gaalka mucaahadka ah midka musta'manka ah gaaladaasi aan dhiiggoodu bannaanayn xoolahooduna ayna bannaanayn sidaasoo kale markay dhacaan ayagana halkaasaa lagu bixinayaa wabilaahi towfiiq jazaaka allahu sheekh maxamed cabdiumal sheekh maxamed maxaan ku idhaahdaa sheekh idriis wuxuu leeyahay waxaan ahay gabadh walaalkay xaas ma igu qaadi karaa si aan ugu dhoofo isla markaana waxaa la raaciyey su'aal kale oo ah gabadh baanu derisnahay gabadhaas waxay aad u jeceshahay muusiga markaan idhaahna naa walaalay muusiga naga gaabi waxay dhihi ama muusiga naga daa waxay dhihi deris baan nahay hay dhibina alxamdu lilah su-aasha hore oo ku saabsan wixii hadda soomaalidu dhihi jirtay isxambaarka gabadha walaashiisa ayuu leeyahay xaaskaygii ma ku qaadi karaa bimacnaa waxaan odhanayaa waraaqaha ku qorayaa sheegayaa u qorayaa inay tahay xaaskayga waana walaashiis ee xaaskiisii maaha dabcan waxay aligla tahay soomaalida hadda indha adaygeeda waxay iska weydiisaa wax arrinkeedu waadix uu iska yahay laakiin maaqan wax laga raadinaya qiil unbaa la raadinayaa mindhaca waa su-aalaha had iyo jeer soo takaruraya bal way ka sii xun tahayoo hooyadii baa waxaa leeyahay xaaskaygii baan ku qaadi hooyadii dhashay ayuu qofku leeyahay xaaskaygii wayaan odhanaya wuxuuna ku odhanayaa dad uu wax yar kaga rajaynayo sida gaalo iyo xoogaa nafaca ama adduunyo ah oo wax hadda iljaa u samaynayaa ma jirto hooyadii qiso waxaan ogahay hooyo soomaaliyeed oo cala alfitra ah islaamkeediina u dhowrnaa wiilasheeda ayaa waddamada yurub ka mid ah uga soo sameeyey waxaan la yidhaha sponsorka sheeko been ah ayay saba malooqeeyeen sheekadaas oo ah hooyadood inaanay cid kale lahayn iyagu uun ay u yihiin dad sidaas darteedna ay rabaan in la keeno ma aha in lagu keeno inay tahay xaaskoodii waa hooyadood oo dhaba laakiin beentaas ah inaanay cid lahayn inaan cidi la joogin inay meesha ku dhibban tahay waddankeedii soomaaliyana ku dhibban tahay iyo wax la mid ah almuhim wuxuu ii sheegay ninkii qisaasay ku dhacday islaantu ay dhashay safaaraddii markay tagtay gabadhii yurubiyaanka ahayd ee safaaradda joogtay ee islaantii hooyadii soomaaliyeed ee muslimadda ahayd la kulantay islaan weyn waxay ku tidhi haye wiilashaadii waxay joogaan waddanka hebel waxay leeyihiin dhulkan cidi kuma joogto oo keligaa baa tahay saas darteed waa in iyaga lagu haleelsiiyaa run miyaa warkaasu waa beentood bay tiri najasiyad waxba kama jiraan oo dad baa kuu jooga bismi illaahi araxmaan araxiim dad la-aan maxay dhigay bay tiri carruurteydii iyo kuwii sii dhaleen iyo kuwaan anigu dhalay tiradooda ma xisaabin kara bay tiri soomaaliya intay dhan yihiin oo nimankan been bay sheegayaan bay tiri najis wax ka jiraan ma jiraan sheeko gabar walaasha la hadasho waxay tiri war hooyo waa naceebaysay oo wixii oo dhan way dumisay oo waxay tiri waxba kama jiraan markay la hadleenna waxay ku tiri mandayno 70 iyo ziyaadan maraya
waxaad leedihiin naag gaalo ah inaad xoogaa yar oo adduunyahaad ka qaadato ama dhul orobaan kuu qaadno been u sheeg oo ilaahay la hortag ma haddaan anoo 70 jiray ilaahay been la hortaga horta dadka cala alfitrada ah oo diintooda yacni ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey qisooyin badan oo saasana waa aabbe soomaaliya oo nin uu u tarjumayo yaa ninkii turjumaanka ah wuxuu isagana ii sheegay wiilkiisii baa wada wuxuu leeyahay ninkan aabbihiis ah inuu yan isaga la noolaan karin oo uu guri u baahan yahay oo uu adeeg u baahan yahay oo aanu cid u adeegta lahayn wax u shaqeeya lahayn wax la jooga lahayn ayuu rabaa inuu ka dhaadhiciyo isagana aanu maaragtay cilaaqo la lahayn si xoogaa uun maaragtay mushahara iyo wax saasa iyo loogu qoro odagiiba laakiin meeshii ku kashifay wiilkaygii waaba kan maxaa cid kale uga baahan marka qisooyinkaa way badan yihiin waxaan leenahay oo aan qisada u sheegayaa innagu hadda waxay noqotay arrin iska caadi ah oo la iska bannaysto laakiin arrimaha saasa dadka muslimiinta ah waxaa wanaagsan inay ka xoroobaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saartaan waxyaalaha qofka muslimka aan laa'iqa u ahaynna inaanay ku noqon taas waa dhinacaas gabadha deriska ah oo tiri muusiiqada ay dhegaysanayso deris baan ahaye hay dhibina dhinac waa ka saxan tahay dhinacna waa ka qaldan tahay dhinac waa ka saxan tahay deriska haddii lama dhibo waa sax laakiin kelimadda hadda meesha ay u daliishanayso haddii la yidhi muusiiqada kor ha noogu qaadin muusiiqadu waa xaaraan iyada laftigeedu deriska inay dhibto maaha deriskii bay hadda dhibaysaa iyadu waxa wax dhibka wadaa marka waa iyada saas darteed waxa weeye waanada saasoo kale waa in la isugu naseexeeyo muusiiqadu sideeday xaaraan u tahay iyo macaasiftu xadiiskii nebiga calayhi salaatu wasalaam layakuunana min ummatii naasun yastaxiluuna alxira walxariira walmacaasif iyo wax la mida adilada kaloo la mida in waxyaalahaas ay tahay waxaan bannaanayn saas darteed gabadha waa inayan deriska ku dhibin iyaduna waa inayna dhegaysanay ka waantoodo allah subxaanahu wa tacaala qalbigeeda ka shaafiyo wallahu aclam wuxuu leeyahay saa'ilkan soonka la soomo maalinka carafo meeshaad joogtana maalinka xiga laga soomo shareecada islaamku maxay ka qabtaa matalan south africa ayaa maalin ka dambaysa sacuudiga marka annagu ma xaggaan raacnaa mise meeshan aan la soonnaa macnaha rasmiga ahee ka dambeeya waa intaas bismi illah alxamdulilah su-aashan intaanan u gudbin su-aashii walaalka ninka walaashii ku qaadaya waa xaaskaygii baan rabaa inaan wax ku daroon u idaafeeyo marar badan waxaa dhacdaa qofka sidaa lagu qaadayo in mar loo soo sameeyo waraaqa meher inaad isqabtaan oo xaas isu tihiin maxaa caddaynaya lasoo sameeyo waraaqa meher meelaha qaarkood waxaa ka dhacdaa inaan intaa lagaga harin ee la yidhaahdaa munaasabadii guurka isa soo sawira sawirkoodii keena ma garanay meeshin inay ka dhacday in kale oo kadib uu waraaq meherna soo sameeyo iyagoo labisanaya munaasabad baa la joogaayoo la isku sawirayo oo nin iyo xaaskii ana uu keeno suurada masalada qaabka loo sharciyeynayo waxaa dhici karta qofka diinta inay ka saarto nabigeena sal alla alay slm xilligiisii waxaa dhacday nin baa xaas aabbihii ka dhintay guursaday markuu la aqalgalay ciidan buu u dirayoo isna in la soo dilo xoolihiisana la soo qaado buu u diray culimmadu waxay ku fasireen wixii maxaarimta ee sharciga ahaa muxaramaadka ahaa ee weliba reerkii haweenkii maxaarimta noqday ahaa haddii uu siiqo sharci ah iyo qaab sharci iyo guurkii sharciga ahaa u muujiyo oo waafajiyo qofkaasi diinta waa uga bixi karaa haddaan cudurdaar kale uusan yeelan marka masaladu beensoka keliya ha ka eegina markaa waraaqaha soo samaynaysaan eed buugga guurka soo samaynaysaan eed sawiradii mihirkii iyo gacmaysqabsiga soo samaynaysaan diintiinni iyo diyaanadiinni baa khatar ku jirta ogaada labada qof ee waxaa samaynaya qisadaasi
wax badan oo shabahaa la sameeyaa hadda arrinta aad ha looga digtoonaado. su-aasha hadda lay weydiiyey oo ahayd yaan la soonnaa, de carafo khaas kuma aha. carafo dheh, caashuuraa dheh, ramadaankii dheh, ciidihii dheh, masaladu masale yowmu carafa khaas ku ah ma aha. bilaha aragtidooda ay ka ratimaysa axkaamta sharciga ee sawm iyo ciid ah. qofku ma aragtida u horraysa ee muslimiinta meeshii laga arkuu raacayaa, mise meesha uu joogo iyo dadka uu joogo haddii ay jirto cid aragtida iyo arrimaha looga dambeeyo ciddaasuu raacayaa. oo laba qowle culimmadu qabaan, dadkiisa ha raaco iyo aragtida u horraysee la arka ha raaco. waana masaa'ilkii ikhtilaafu almataalica jawaanibta iyo dhinacyada qaarkood la xiriira wey. aniga waxaa ila sax oo raajix ilaa qowlka jamhuurtu ay qabaan oo ah aragti kastaoo sharciga u horraysa oo sugnaata bay axkaamtu ku xihan tahay. kadib acmaasha la samaynaya laba qaybood weeye. qaybna waa acmaal shakhsi oo ugu noqonaysa sawmkaaga iyo shakhsigaaga inaad afurto. qaybna waa qaybta ciidda iyo tajamucaadka u noqonaysa. hadday muslimiintu meesha aad joogto munaasabadda ciidda wakhti ay isku raacsan yihiin, adiguna aad cidda kale la soonto sida aan nidhi ama la afurto, soonkaaga iyo afurkaaga waad iska qarsan si aadan fitan iyo tafriiq kale u keenin. dadkaasaadna la ciidi wixii idhaar iyo muujina, haddayna dad kaleoo muslimiin oo badan oo sidaa kula qabaa jirin. saa darteed aniga waxaa raajix ilaha inuu aragtida sharcan sugnaatay ugu horraysa uu axkaamteeda qaadanaya wixii sawm iyo afur ah. laakiin wixii acyaadda ah dadku xilligay ciidaan uu la ciidaya. wallahu aclam. jasaaka allahu khayran. ninkan su-aalo dhowra ayuu soo qoray oo af carabi ku soo qoray. khulaasada in sha allahu tacaala kulligood waxaan ku wareejin doonaa sheekh maxamed cabdi umal, jasaahu allahu khayran. su-aasha ugu muhiimsan waxa weeye, waxaa batay buu leeyahay markii la turjumo ayaamahankada muslimiintu dhulkay leeyihiin oo dhan maxaan ku idhaahdaa in lala dagaalo oo yacni gaalooyinka ay la dagaalamaan. dowlado muslimahoo u taaganna ma jiro. innaga maxaa inala gudboon? ninkiisa aan wax tallaabaa ka qaadan miyuu ku dambaabahayaa? waxaa su-aashiisa labaad ay tahay, nin baa guursaday islaan ama xaas, waxaana u caddaatay muddo kadib inuu maaragtay ayna gabadhaasu tukanin. guurkaasu ma baatil baa? wuxuu ku xujiyey mawliidka in loo dabaaldego, muxuu xukunkiisu yahay? waxse daliiloo ku soo arooray ma jiraa? wuxuu ku khatimay, ma dhici kartaa jinniga iyo insigu inay isguursadaan? bismi illahi raxmaan raxiim. horta su-aalahan wadaadku inuu qaybiyey ahayde waxa uu dhammaan aniga iigu soo jeeday ma garanayo, laakiin insha allahu tacaala wadaadada kalena intoo kale markuu siiyo unbay igu soo wareegi doontaa insha allahu tacaala. su-aasha hore bilikhtisaar haddaan soo gaagaabiyo, muslimiinta dhulkoodii iyo dalkoodii iyo kulligood dagaal baa ku wajahan. wuxuu leeyahay ma iska fadhiyaynaa, maxaanse samaynaynaa? jawaabtu waxa weeye, muslimiintu meeshii ay awood leeyihiin ooy gaaladaas gardarraysanaysa ee dhulkooda ku soo duulaysa awooday isaga celiyaan ay leeyihiinna ha iska celiyeen. waa jihaad sharci oo muqadasa wey. laakiin dagaalka ay dagaalamayaan ay gaalada la dagaalamayaan waa inuusan ka bixin nidaamkii ay shareecadu ugu tala gashay in gaalada la isaga celiyo ama loola dagaalamo. jihaadkii sharciga ahaa iyo axkaamtiisii iyo maqaasidiisii iyo shuruudiisii iyo aadaabtiisii waa inay ilaaliyaan, hadday dowlad yihiin iyo hadday koox yihiinba. meelaha noocaasi awoodda ay ku leeyihiin inay wax iska celiyaan ha iska celiyaan. meelaha kaleeto ummadda islaamka waxaa gaalada u jebiyey oo cadowgeeda u jebiyey waa diin xumada, waa wacyi darrada, waa ilaahay diintiisii ay ka fogaadeen, waa jahliga. marka in ummaddii wax la gaadhsiiyo oo la tarbiyeeyo
oo diinta la gaadhsiiyo oo dib loo soo celiyo ooy diinteedii dib ugu soo noqoto ooy dib u soo noolaato ooy dib u midoobaan oo markaa kadib yacni ay noqdaan ummad wax iska celin karta dadaalkan ay culimmadu wadaan dacwadan gaadhsiintan tarbiyadan asaaskan waa icdaadkii waay waa diyaar garowgii waay macnaha marka meel bannaan lama fadhfadhiyo ka gaalada iska celin lahay ee dagaalamayana dariiqaa saxsan ha iltisaamo khayrna allah siiya iyo nasri kan kaleete ee ummadda wax u qabanaya dacwada wadana meel cidlaa ma fadhiya muhiimaddii wax walba ka muhiimsanayd ayuu hayaa kan dagaalamayana isagaa soo saaray kuwan hadda uu ka shaqaynaya tarbiyaynayana yacni waxaa ku xidhan ummaddani markay diinteeda u soo noqoto unbay gaalada iska celin kartaa markaasay madax bannaanaan kartaa markaasay jiri kartaa intay jahli iyo diin darra hayso dee waata meeshaa dhigtayba marka shaqola'aan ma nihin shaqaba fiican baa socota meel walba taa intaasaan dhihi lahaa wakhtiga rabbi bayna tabaaraka wa tacaala ku xidhan tahay ummaddani inay nidaam fiican oo islaam ah oo diinta dabaqa uu u dhismo waa masalatul waqti waay laakiin insha allahu tacaala siduu nabigu noogu bishaareeyey way imaan doontaa masalada xigto oo dhahaysa yacni masaladaasi warka murtidiis waxa weeye nin walba wuxuu qaban karaa ha qabto waay laakiin wuxuu qabanayo shareecada ha waafaji su-aasha xigto oo dhahaysa nin baa guursaday haweenayaan tukanin guurkii ma asaxay jawaabtu waxa weeye waa masale khilaafiya haweenta aan tukanin ma gaalba mise waa muslimad culimmada qabta waa muslimad caasiyad ah waxay qabaan meherki waa sax culimmada qabta ma ahe ruux salaada ka tegay waa gaal diinta ka baxayna waxay qabaan meherkaasi ma asixin oo gaal meher ma qabanayo aan kitaabiyad ahayn ra'yigaa dambaana ila xoog badan taariku salaadku inuu yahay gaal daahirka qur-aankuna waa sida axaadiista daahirkeedu waa sida ijmaacii saxaabaduna sidaasuu ahaa taariku salaad waa gaal hadduu yahay rag iyo dumar midkuu dooni ha noqo mar hadduu gaal yahay ruux kaloo tukadoo muslim ah meher uma qabto gabadha muslimadaana nin taariku salaada meher uma qabto ninka muslimka ah ee tukadana naag taariku salaada meher uma qabto sidaasay masaladu ku xoog badan tahay masalada xigtoo dhahaysa muxuu ahaayey ixtifaalka mawlidka iyo mawliidka maxaa loo hayaa waxba looma hayo mawliidka wax diina looma hayo qur-aan looma hayo sunno looma hayo saxaabadii iyo salafkii iyo taabiciintii waxba loogama hayo qarnigii afraad buu bilowday waa bidcad dib laga keenay munkaraad fara badan iyo shirkiyaad iyo balaayo badanna xambaarsan dhinacyo fara badan oo kale marka laga fiiriyana nusuus fara badan baa ka hor imaanaysa waxaa ku filan inuu bidco yahay baa ku filan saas daraaddeed waxba ugama baahnin mawliidka waxba ugama baahnin ninkii isla nebi maxamed baa lagu karaamaynahayoon nebi maxamed waxaasoo kale laguma karaameeyo nebi maxamed waxaa lagu karaameeyaa in sharcigiisa la raaco in sunnadiisa la raaco taasaa karaamada nebiga sal lla lay waslam laakiin diintiisa waxaan ka mid ahayn in lagu soo daro taasi ma aha karaamayn nebiga la karaameeyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh su-aasha xigta oo ugu dambayso midda afraad ah diinta islaamka ma ku sugan tahay inay insiga iyo jinnigu isguursan karaan maxaa kaala jira su-aasha iyada wal waxaad ii sheegtaa waxaad ka faa'iidaysataan haddaan caawa haddaan ku idhahdo way isguursadaan haddaanse ku idhaahda isma guursadaanoo xadhig isuma qabto maxaad ka faa'iidaysaa waxaa la yidhaahdaa waa su-aalaha yacni cadiimulfaa'ida waay wax faa'iido weyn oo hadda ka dhalanaysa ma jirto wixii camal ka laasimayaa la isweydiiyaa masalada culimmadu way ka hadleen cala saxiixna waxa weeye muxuu ahaayey galmada iyo inuu muxuu ahaay u galmoon kara iyo masaa'ish noocaas oo kale waa wax suuroobi karay leeyihi oo lam yatimithunna insun qablahum walaa jaan iyo aayadahaasay wax kala baxbaxayaan laakiin meher muctabar ah iyo guur muctabar ah oo axkaamtii leh inay intay isguursadaan kala dhalaan ooy kala tarmaan maya ma suroobi karto bal waxay leeyihiin haddii masaladaa la sugo nooc waxay noqonaysaa loo xeeladaysto oo shareecadiiba lagu baabi'iyaba oo haweenay kastoo sinaysatoo garac dhasha dee jin baan isqabnaabay dhihi
soo ma haddii la furoo la yidhaahdo way isguursan karaan midda labaadii sheekhii isu meherin lahaa waa kuma yaa isu meherin midna dadkeedii waa insi midna dadkiisii waa jin sheekhee baa qaalli ka noqonoo meherin weligii seebuu u bixin wax la fahmi kara maaha soo ma saas daraaddeed xadhig iyo meher ilma ku dhashaani sax maaha ma jiri karto amaa ma isticmaali karaa jinku dumarka insiga ma isticmaali karaa intuu iska soo dhigo bini aadan taasi waxay leeyihin way suroobi kartaa taasi way suroobi kartaa bin waa wax dhici karta dumar badan oo ka sheeganayana aniga waaban arkayba ficlan oo muxuu ahaa habeenbarhkii iyadoo gogasha jiifta oo iriduhu u wada xidhan yihiin oo dariishaduhu xidhan yihiin baa waxaa u imaanaya iyadoo soo jeeda nin caadiya u imaanaya sida ninka caadiga ahee insiga uu shahwada uga guto buu shahwada uga gudanaya iyaduna dareenkii shahwada way qabtaa oo shahwadii way gudanaysa hadhow markii danta la kala dhammaystana meeluu galay ma arkayso waa xaqaa'iq jirta waay culimmaduna waa fardiyeen waa wax suroobi kara oo muxuu ahaayey hadda mustaxiil ma aha laakiin wax guur ah iyo muxuu ahaayey taran dhex mari kara ma jiro oo sharci ah wabillahi tawfiiq hadday culimmadu wax ku tarayaan ma aqaan barnaamijka waa lagu kala khibrad roon yahay majaalku waa u furay jazaaka allah khayr wuxuu leeyahay su-aashan sheekh maxamed idriis jazaaka allahu khayr ha ka jawaabo yacni sheekhuu si toosa ugu soo hagaajiyey wuxuu leeyahay sheekh waxaan aadaa aroosyada arooskaa keliyata waxaan u aadaa inaan gabdhaha ka soo fiirsado maxaa yeeley wuxuu leeyahay waa habeenka keliyata ee gabdhaha soomaaliyeed tooska loo arki karo dembi ma iga raacayaa maqsadkaa isagu use muxuu yahay alxamdu lilah horaan u sheegay waxaan haddii guur ama dumar laga sheekeeyo waa qoslayaan calaa kulli xaal dhallinyaradu guur bay u baahan yihiin ha guursadaan ninkan dhallinyarada ah wuxuu leeyahay aroosyada waxaan u tagaa inaan gabdhaha aan fiirsado indhaha ka buuxsado waa habeenka gabdhaha soomaalida la arki karo buu ku daray meeshaan waxaa yaalla dhowr mas'alo mas'alada koowaad waxa weeye aroosyada uu tegayo oo u tegayo gabdhaha inuu daawado halkaa waxaa ka muuqanaysa aroos inuu yahay rag iyo dumarku isku dhexdaysan yihiin waana masale aan bannaanayn raggii iyo dumarkii inay meel isugu yimaadaan arooska oo ay isku dhex jiraan waa masale muxaramo waa masalada koowaad masalada labaad waxa weeye qasadka ninkan uu u tegayo meesha oo qasad xun ah oo ah inuu indhaha meelaha ku soo firfiriyo iyaduna waa dembi kale masalada saddexaad oo meesha ku jirta waxa weeye dadka aroosyadan iyaguna samaynaya oo iyaguna dembiga qaybtooda qaadanaya maxaa yeelay waxay u sahleen raggii iyo dumarkii inay meel isugu yimaadaan oo ikhtilaad iyo isdhexgal halkaa ka dhaco fawaaxish ka waaweynina inay ka dhacdo ay dhici karto iyaguna dembigooda qayb bay ka qaateen oo dembi bay sameeyeen oo mujtamacii waxay qayb kaga qaateen fawaaxishtii inay ku faafiyaan oo munkarkii ay sahlaan oo gabdhihii iyo wiilashii dhallinyaradii raggii iyo dumarkii ay u fududeeyaan siday faaxishadii aynu ka sheekaynaynay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala waddooyinkeeda u xarimay waddo ka mida inay u fududeeyaan meeshii marka arooskii la rabay oo sunnada ahaa oo nikaaxa ahaa waxay u beddeleen oo ku dareen dembi iyo ismi iyo ishaacatu alfaaxisha waalmunkaraat inay munkar ku faafiyaan waxaa kaleeto iyaduna masale afraad ah dumarka iyana ziinadoodii bannaanka soo dhigaya guryahoodii ka imanaya ee meel nimankii ay joogaan ay ka daawanayaan oo aroosyaah iyaguna la soo shir tegaya
iyaga iyo awliyadooda iyo dadka mas-uulka ka ahna iyaguna dembi bay qaadeen. masalada intaasoo nooc iyo intaasoo qaybood baa horta ka qayb qaadanaysa oo munkaraadka. hadday jirto haddana heeso iyo sawiro iyo video la duubo iyo waxyaalaha kaleeto oo ama la cunayo ama la cabayo oo iyana ka siyaadsan hadday jirto muxaramaada, iyana waa dhulumaatun bacduha fowqa bacdin, waa mugdiyaal kala sarsareeya oo isdul saaran way. intaasoo mugdi ayaa marka meesha ku jirta. intaasna qaybtaadaad ka qaadan. marka dadka muslimiinta ah ama ha noqdaan dadka aroosyada dhiganaya ama ha noqdaan gabdhaha muslimaadka ah ee tegaya aroosyada mukhtaladka ah oo saasoo kale ah, ama ha noqdaan ragga iyaga mas-uulka ka ah sida nimankooda iyo aabbayaashooda iyo walaalahood, ama ha noqdaan dhallinyarada iyo ragga iyagu aroosyada saasoo kale tegaya. dhammaan dadkaasoo dhan waxa weeye tacaawun cala alithmi waalcudwaan bay ku bahoobeen. marka waa in ilaahay walaalayaal laga boqo. aroosku waa sunno in la dhigto, in la farxo, laakiin waa in la marsiiyaa waddadiisii saxda ahayd. ninka dhallinyarada ahna waxaan leenahay waxa ku bannaan inaad guursato si meela fiirfiirinta xaaraanta ah aada uga daawowdo. daawo kalena ma laha. ya macshara shabaab man istataaca minkum alba'ata falyatasawaj. waxaana kaga hadalnay mowduucii muxaadaradii zinada ee u noqo in sha allahu tacaala daawadeeda. daawadaaduna taas weeye, guur weeye iyo ka fogaansho meelahaas. ilaahay waxaan kaaga baryaynaa adiga iyo dhallinyarada muslimkaaba inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala faaxishada idinka xifdiyo, furuujtiinana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhowro. gabdhaha muslimaadka iyo qoysaska muslimkaana ilaahay inuu fawaaxishta ka ilaaliyo. wallahu aclam. jasaakum allahu khayran. waqtiga uu dhammaaday. guddiga su-aalaha soo kala marhaya masaajidka dacwadiisa ka tirsan waxay yidhaahdeen soo afjar. 3 su-aalood baa lagu soo khatimahayaa ruuxii nasiibkiisa ay ugu soo hagaagto su-aashiisa. waxaan kaloon ka cudur daaranaynaa su-aalaha faraha badan in laga wada jawaabin, maadaama in badan lasoo ballanqaadahayo su-aalihii dib loo dhigay in laga wada jawaabahayo. laakiin waxaan ilaahay ka codsanaynaa mar kale inuu culimmada intuu sidan oo kale u fadhiisiiyo wixii dhimanaa ay ka jawaabaan. 2 su-aalood waxaa iska leh sheekh maxamuud shibli, midna waxaa iska leh in sha allahu tacaala sheekh maxamed idriis. su-aasha 2 su-aalood ee sheekh maxaan ku dhahdaa sheekh maxamed shibli wuxuu leeyahay waxaan ahay nin dhallinyaro oo carab ah, in badan baan shaqo raadinhayay, waan rafaaday, 2 waalid oo aad u gaboobayna waan leeyahay, waxba maxaan ku idhahdaa waan ku soo bixi waayey. waadan baan shaqo helay. in cabaara markaan shaqaynhayay baa nimankan u shaqaynhayaa waxay ii keeneen waraaqo la leeyahay turjun oo mukhaabaraadka iyo luuqadda af carabiga ku turjun, luuqadan kale ku turjun. yacni waxaan waraaqahaasuna yacni waa mukhaabaraad baa loo turjumahayaa oo wax gaalada dan ugu jirta weeye. xoolaha aan ku qaato shaqada iyada ama xalaal baa mise waa xaaraan? taas waa su-aal. su-aasha kale wuxuu leeyahay sheekh waxaan ka kari la'ahay xaaskayga wax meelaha khuraafaadka iyo mingiska iyo waxaa lagu dhigo iyo meelaha riwaayadaha iyo laga heesheeso oo habeenbadh laga yimaado. weliba rag wuxuu leeyahay waaweyn baa mararka qaarkood u soo sheegay in riwaayad caawa la dhigahayo. xaaska noocaas oo kale a maxaan ku sameeyaa? wajazaaka allahu khayran. bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalam ala sl amaa bacd. su-aasha hore nuxurkeedu waxaa weeye niman ama mukhaabaraad leh ama sirdoona baa waraaqa noo turjin yidhi muslimiinta dhibaya. saasaan u fahmay waraaqda nuxurkeedu inay tahay. dadku ama sirdoon ha noqdaan ama hay-ada ha noqdaan, haddii waxa ay samaynayaan ee waraaqahan loo samaynayaay ay dembi iyo wax muslimiinta dhibaya tahay sida saa'ilku uu sheegay, ama wax fuxshi iyo dembi iyo muxaramaada loo turjumayaa, ama wax muslimiin dhibayaa loo turjumayaa. tarjamadu waa nooc tacaawunka iyo isgarabsiga ama howllaqabad iyo howl fududaynta ka mida wey. wax kasta oo dembi ah iyo wax kasta oo qof muslima ama qof berii'a dhibaya
qofku ama ha noqoto qoraal ama ha noqoto daabacaad ama ha noqoto tarjamad ama ha noqoto koobiyeyn ama ha noqoto geynta meesha laga rabo wax kasta oo ama bidaatihi dembi u ah ama qof muslima dhibaya si xaq darro ah ama qof kaloo berii ah dulmi uu noqonaya qofka muslimka inuu qayb ka noqdo oo uu lu ku darsadaay ma bannaana cumuumkii naska aayadda qur-aankaana ku filan walaa tacaawanuu cala aliithmi waalcudwaan wax isagu dembi ah iyo wax xadgudub ah oo xaqdarro ah dad lagu xadgudbayo garab ha isugu noqonina ha isugu kaalmaysanina nusuusta sharcigu tusaalayaal bay ina siisay dembi qoraalkii wax laga qoray inuu dembigii yahay oo markii ribada laga hadlayey 4 baa la lacnaday 4ta la lacnaday waxay ahaayeen waxaa ka mid ahaa wakaatibaha ninkii wax kala qoree kala xisaabiya ani riba ma bixinayo ma qaadanayo waan u kala qorayaa lacagna waa ku qaadanayaa dembigii baad qayb ka tahay wey tacaawunka qaybihiisa kalena khamrigaa 10 loo lacnaday waxaa la lacnaday kii sameeyey kii gaariga ku qaaday kii xamaaliga ee gaariga saaray kii gaariga kaxeeyey kii ka dejiyey gaariga lagu wada laftiisa sababta intaa loo wada lacnaday waxaa weeye dembiga gelbintiisa iyo gurigeyntiisa iyo kamira dhalintiisa buu ninba kaalin ka qaatay saa darteed dunuubta iyo macaasida iyo adiyada iyo cudwaanka iyo dulmiga iyo dhibka dadka abriyada ee muslim iyo aan muslim ahayn intaba ma bannaana qayb inaad ka noqoto waraaquhuna intaa unbay soo gelayaan su-aasha qaybta labaad islaantaydii baan riwaayadaha ka kari lahay sooma insha qoran islaantaydii baan riwaayadaha ka kari laahay iyo meelaha khuraafaadka ah de meelaha khuraafaadka ama durbaanada lagu tumo ama lagu xadreeyo ama munaasabadaha mawliidkiiya lagu dhigaan u qaatay khuraafaadka tan kalena riwaayadaha iyo meelaha heesaha iyo filimaanta lagu jilo baan iyadana u qaatay labadaasi waa dunuub iyo macaasi tegitaankeedu midna waa bidac midna waa muxaramaad qofka muslimka ee dumarka inay tagtaay ma bannaana ninkeeda qabee mas-uulka ka ahna inuu u oggolaado ma bannaana hadduu oggolaadoo raalli ka noqdo waa qaybtii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam riwaayadahaas iyo ku magacaabay ninka dayuuska la yidhahdo ama soomaalidu dayuuska ay u taqaano wey alladii yuqiru alkhabatha fii ahlihi dadkiisoo dunuub iyo macaasida samaynaya iyo dhaqan xumadaas u oggolaanaya u fasaxaya waa inuu ninku reerkiisa ka ilaaliyaa waayo rabbi baa amray quu anfusakum wa ahliikum naaran waquuduha annaas waalxijaara ka ilaalintii naartayna ka mid tahay inaad ka celisa meelahaas oo kaleeto ka celintii marna waanay leedahay iyo waxusheeg iyo ilaahay lagu la xasuusiyo laakiin ha lagowo qofka dumarka xaaskaagaa markaad ilaahay xasuusinayso horta adiga ilaahay kacabsi lagugu yaqaano wey laakiin aduu inaad qasato markaad rabto iyadoo markay qasan rabtana na ilaahay ka baqaa tiraahdaay waxaa weeye waa kasad bursi waxbaad ka bursanaysaa baa loo qaadanayaa horta adigu ilaahay ka baq ilaahay cabsidiisana ku wada jooga gabadhiina ku waani dadna u kaasho in ilaahay ka baqdo waxana ay iska dayso haddii aad ka kari weydo oo dhinacaa kaba quusato haddii aad lafahaaga iyo ilmahaaga inay idinba saamayso oo laftiinna marka dambe idinku shubto aad ka baqdo dee bannaanka ka maro markay riwaayadda aaddo dhex seexa dheh meeshaa riwaayadda u tagtay ha ka soo galbane furaashkaagana dhiga ku dheh gurigana dib ugu soo galban maysid kala dooransii gurigeeda iyo riwaayadda iyo meesha damdamta loo tegayo laakiin ninku ahalkiisa khabadka inuu ku sugo haddii uu ka baqayay isagu inay jiitaanma marka kaleo tambatiisa iyo ilmaha u baqayana uu ku sii daaya ma aha laakiin marka hore talada iyo waanada iyo tolka iyo qaraabada kaashigooda war inuu ka soo quusto weeye
culimmadan intaa u dayay waxay ku darayaan wallahu aclam. jasaaka allah khayran. su-aashii u dambaysay gabadh baa soo qortay sida muuqata, waxay leedahay sheekh waxaan dhalay 10 carruura, ilaahay subxaanahu wa tacaala walad saalaxa uga dhigo, aamiin dhah. 10kii markaan dhalay baan isxidhay bay tidhi. markaasaa waxaa la ii sheegay yacni makaankii baa iska xidhay, waxaa la ii sheegay bay tidhi inay dembi ay ku jirto. markaan damcay inaan dib isu furana waxaa la yidhi bay tidhi qalitaan baa lagugu samayn, qalitaankiina waan ka cabsanhayaa, maxaan sameeyaa? arrintaasa ay haysatay oo jasaakum allahu khayran. alxamdu lilah. gabadhan saaad maqlayseen waxaa weeye markii ay ilmahaas ilaahay subxaanaه wa tacaala uu siiyey kadib waxaa la sameeyey xiritaan dhalmada ah oo daa'im ah in lagaba xiro totally. arrinka xiritaanka dhalmada laga gooyo ama ninka ama haweenta arrin bannaan maaha oo si daa'im ah loo gooyo. sababtuna waxay tahay wuxuu ka soo horjeedaa tarankii ay amartay shareecadu iyo towjiihii nebigeennu calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa uu siiyey oo ahaa inay durriyadda badiyaan. rag iyo dumarna waa ku ammaanan yihiin labaduba, wuuna ugu yeeray labadaba oo nebigu calayhi salatu wasalaam wakiilahaa tasawajuu alwaduud alwaluud fa innii mukaahirun bikum alumam. marka in ummadda la badiyo oo tarankeeda la badiyo, durriyadda ilaahay subxaanahu wa tacaala u cibaadaysanaysa ee muslimka ah ee ummaddii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ah la badiyo, waa arrin diirintii uu inagu dhiirigelisay. inaad adigu marka ka hor tagto iyadoon wax qadar xagga ilaahiya subxaanahu wa tacaala iyan kaaga iman, aad adigu u sacyido inaad joojiso, waxay noqonaysaa arrin mukhaalafo ah oo ka hortag ah. marka arrinkaasu arrin bannaan maaha. dembigaasna inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala uga toobad keento wey. waxaa soo haray hadda in operation kale la sameeyo ama camaliyad kale la sameeyo oo lagu furo dib. awalan arrinkaasu wuxuu horta ku xihan yahay ra'yiga iyo talada atiba umana ah, yacni dhakhaatiir aaminah oo muslina inay ka tala bixin karaan. ma suurtoobi kartaa awalan in sidii hore xaaladdu ay ku soo noqon karto? waa qodob. darar ma ka iman karaa? inteese leeg yahay dararka ka iman karaa? intee buu leeg yahay? iyaduna waa qodob labaad. maxaa ka dhalan kara oo mudaacafaad ah, ama ha noqoto xagga yacni inay najaxdo ama ha noqoto xagga in dhib kaleeto ay dhaliso. haddii arrinku uu noqdo in aad heli karto dib inaad ula soo noqoto xaaladdaadii caadiga ahayd iyadoon dhib ku soo gaarin, de waa alxamdu lilah, waa arrin bannaan. haddii uu dhib ka imanayo arrinkaas oo darar ka culus uu ka imanayo, arrinkii hore ilaahay subxaanahu wa tacaala uga toobadkeen. waxaa dararku ka imanayana yaan la samayn. saasay noqonaysaa marka in sha allahu tacaala siday igu muuqato. wallahu tacaala aclam. jasaakum allahu khayran. asilooyinkii intaasaan ku soo xidhaynaa. waraaqaha qaar badan oo ka mida waxay ahaayeen duco iyo waxaa culimmadaan u dibdhigaynaa. khaasatan gabadhii maxaan ku idhaahdaa dad badan oo xanuunsan baa jira, dad badan oo muraad gooni ala baa jira, wiilal raba inay guursadaan baa jira. gabadhii maxaan ku idhaahdaa khaasatan masaajidkan iyo masaajidka Cape Town 50 kun ku bixisay ee masaajidka tawsiicadiisa ka qayb qaadanaysa, wiil diabetic qaba ayaa dhashay baa la yidhi, in si gooni ah loogu duceeyay rabtaa. waxaasoo dhan iyo borogaraamka xidhitaankiisa waxaan ku soo wareejin mawlaana cabdirasaaq. bismi illahi raxmaan raxiim. alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin, uma asalaatu wasalaamu calaa sayidi almursaliina walambiyaa wabacd. horta marka ugu horeysa waxaa mahad iska leh
إلهي سبحانه وتعالى inoo fududeeyey qabsoomidda mu'tamarkan oo ah mu'tamarkii koobaad ee aynu ku qabanno dalka South Africa khaasatan magaalada Johannesburg masaajidka Imaam Shaafici ilaahay ayaa mahad subxaanahu wa ta'ala waxaanuna ka rajaynaynaa inuu marar badan halkan isugu keen soo celiyo mu'tamar kan la mid ah insha Allah mar labaadka waxaan u mahadnaqaynaa oo u mahad celinaynaa culimadii ka kala timi meelaha fogfog ee safarka u soo gashay ee ka daba timi ummadoodii ku kala firdhatay adduunyada mar walbana daafaha caalamka meel kastoo ay joogaan ka daba taga oo ilaahay diintiisa iyo dacwadiisa gaarsiiya waxaanu leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala camalkooda ha u barakeeyo mid maqbuulana ha ka dhigo ilaahayna subxaanahu wa ta'ala maalinta qiyaame miisaankooda xasanaadka allah ugu buuxiyo ilaahayna subxaanahu wa ta'ala if iyo aakhiraba waxay ku liibaanaan allah siiyo marka saddexaad waxaan u mahad celinayaa dhallinyaradii runtii muujisay firfircooni iyo kalsooni aad u fara badan oo ka qayb gashay mu'tamarkan hadday noqoto xagga amniga iyo security-ga hadday noqoto nadaafadda iyo ilaalinteeda hadday noqoto xidhiidhinta iyo ku xidhidda baaltooga oo runtii dad badan nagala socdeen ayna ka qayb galeen yaboohii oo xalayto ilaa lacag $10,000 ku dhow laga yaboohay baaltooga dhallinyaradii inagu xidhiidhinaysay waxaan kale oo u mahadnaqaynaa bahda halgan.net oo iyaduna ka qayb qaadatay mu'tamarkan oo si live u soo daynaysay xaamud iyo asad oo iyagu inoo hogaaminayay ilaahay subxaanahu wa ta'ala khayr badan ha ka siiyo waxaan kale u mahad celinaynaa iyadana gabdhihii Soomaaliyeed ee runtii dadaalkii la yaabka lahaa muujiyey soo kordhiyey macnaha khibrad cusub oo ah in ay iyagu iska ururiyeen lacag isla markaana gruuba isu qaybiyeen gabar walibana ay ku soo karisay ama gruub waliba uu guryahooda cuntadii ku soo kariyey kadibna ay ka codsadeen dadka muslimiinta ah inay ka iibsadaan ayna ugu tabarucaan masaajidka markaa iyada lacagtii gabdhuhu ay halka ka soo ururiyeen ee lacagtii laga iibsaday waxay noqotay 22,000 oo ran ayay noqotay oo loogu talagelayo in masaajidka ay ku xoojiyaan arrimihiisa iyo dhismihiisa waad aragteen wixii yaraa ee iibsanayseen ama 25 ran ee bixinayseen ee ku kaalmaynayseen markii la isu geeyay 22,000 oo ran ayay noqotay waa lacag meel weyn buuxinaysa ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan leenahay gabdhahaas allah barakeeyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala guryahooda ha islaaxiyo ilaahay ubadkooda allah u barakeeyo inta maxay ahayd toole ubad leh ama ubadkooda allah u barakeeyo inta ubadka raajicinaysa ilaahay ubad khayr qaba ha siiyo inta maxay ahayd toole rag khayr qaba raajicinaysa ilaahay subxaanahu wa ta'ala rag khayr qaba allah ha siiyo subxaanahu wa ta'ala iyaga iyo reerahooda iyo ubadkooda iyo ehelkoodana allah barakeeyo ayaanu leenahay waxaan kale oo halkan uga mahad celinaynaa dadkii ka qayb qaatay tabarucii loogu tabarucayay labada markas ee markaska Cape Town laga dhisayo iyo guriga masaajidkan ku yaala Imaam Shaafici aynu iibsanayno iyagana waxaanu leenahay ilaahay sadaqadiina ha aqbalo sadaqa jaariyana allah idinka dhigo tii naar idinka furatana allah idinka dhigo waxaanu kaloo aan u mahadnaqaynaa dadka Soomaaliyeed ee runtii diinta jecel ee ilaa iyo maalintii uu bilowday ilaa iyo maanta halka fadhiya oo 15 muxaadaro ayaa ka baxay iyo yaboohi waa 16 fadhi ayaynu isugu nimi inta masaajidka daafihiisa waa la buuxay waana la dhageysanayay ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyagana ha ka abaalmariyo
dadaalka ay dadaalayaanna allaha ka aqbalo ilaahayna subxaanahu wa tacaala cilmigii ay meesha ka qaateen ha ku anfaco ilaahayna subxaanahu wa tacaala ifyo aakhiraba waxay ku liibaanaan allaha siiyo dadaalkana in halkaa laga sii wado oo mu'tamaradu insha allahu way iman doonaan kan mid ka weyn inaynu qabanno masaajidka meel ka weyn inaynu kuraysanno oo aynu sida meelaha laga qabanayay sida Sweden oo kale oo iyadu ilaa 93dii ka hor meelahaas bilaabay ilaa iyo haddana qabta oo lagu soo talagalo oo maxay ahayd aad u habaysan inaanu gaadhno ayaanu ku rajo weynahay waxaan kale oo ummadda ugu bishaaraynaynaa mu'tamarkan inoo qabsoomay hadda in uu insha allahu noqon doono mid sanadla ah oo sanad walba xilligan oo kale aynu culimada u yeedhan doonno aynuna ka faa'iidaysan doonno culimaduna insha allahu intan iyo in ka badanba inay insha allahu inoo iman doonaan oo inaga daba iman doonaan ayaanu rajaynaynaa iyagana way arkeen dadkoodii bay arkeen sida ay ugu baahan yihiin bay arkeen kolley iyaga ayaa ceelalyo inoo ah oo culimadii kalena kolley inooga wargeyn doonaa insha allahu iyagana waxaanu ka rajaynaynaa inay nagu soo noqnoqdaan waxaa kale oo waxaan ka cudur daaranaynaa waxyaabihii gaabiska ahaa ee ka dhacay intii shirkani socday khaladaad bini aadanku wuu khalad badan yahay qof kasta oo bini aadan ka midana wuu khaldamaa wixii khalad naga dhacay ama hadal ha ahaato ama fal ha ahaato waxaanu bulshaweynta Soomaaliyeed weydiisanaynaa inay naga cafiyaan oo maxay ahayd tawla ayna noo qabanin khaladaad badan oo dhacayna waxa weeye qofku markuu waxa ku cusub yahay waxa weeye wax badan oo khalad ayuu samayn doonaa waxaan kaloo halka raacinayaa insha Allah masaajidka waxaan ku soo dhajin doonaa sanduuq ay ku qoran tahay cabashooyinka marka dadku wixii ay dhaliilay ay arkeen inay noogu ridaan halkaas si mu'tamarka dambe ee sanadka soo socda aanu uga gaashaamano iyadana dadka weynaha Soomaaliyeed waa ka codsanaynaa waxaan ku soo gabagabeynayaa dad badan oo waxaa jira dhibaatooyin haystaan isla markaana qaarkood cudur haystaan qaarkood iska axwaalaysan culimada waxay ka soo codsadeen inay u duceeyaan waxaan ku wareejinayaa oo shirkeennii aan ku soo gabagabeynayaa duco ay inoo duceeyaan culimadu dhammaanteen iyo isla markaana dee gabagabo wanaagsan ay inoo noqoto aniga oo ku hadlaya magaca albayaan Islamic Council oo ah hay'adda dacwada South Africa waxaan idin leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha isugu keen soo celiyo mu'tamar kale oo khayr badan culimada ayaana ku wareejinayaa iyo ducada wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillah صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا